wasiir waa kula dardaarmayna waa kugu tufaynaa baryahan waa la warwarsadaa oo xagaa ka baxday ciyaartoyda waxaa jiri jirtay bankiino waxa la yidhaha sooma raggaan aad arkaysaana bankiino u fadhiya marka kii soo dhaafta anaa shaafta ku dhufana marka xukuumadda oo heshiis dan qaran iyo shacaarkii madaxweynuhu ahay Soomaaliya heshiisa adduunyada la heshiisa rag adagna hore u fadhiyaan kuwa adagna bankiinada fadhiyaan marka yaan nala soo haweysanin ma hadhow afeefan bixin hadhow anagoo bixi hadaad aragtaan difaac adag ku jirna waa nala ka gardaraya mar rabna waliba dhaqdhaqaaqo waa iska ilaalinaa dadka gadaal u laabtamani 5 sano la soo dhaaf dawladii naga horreedo dhacday waxyaabay ay ku dhacday aniga markii la warsado waxa kamid ah annaga bisayna ay jireen horta aydu shaqa ma marka dad badan aniga ima jiray by the way bil munaasab intaasna ku soo qatiba dad badan ay yimaadaan nimankii ma haysatiin social media active ma haysatiin nimankii iska counter narrative ma samaysaan waxaan dhihi jiray waa markii saas ileeyihiin waa 2017 xukunku waa carfa wixii baa iska fiican yihiin geeya wali socota howlahaas oo dhan socda waxaan dhihi jiray 4 sano kadib aan warbixin bixinaa niman saaxiibaday waa fadhiyaan oo hadda goor aan la hadlo 4 sano kadib odagii wax Facebook ka difaaca waayay biilkii Facebook wax bixiya la waayay wixii oo dhan iyo anagii ilkeenii miyaan qabnaa isu saaran waxaan anaga warankeena anaga wadanaba dad biilku ma aanaa siinay waxa la rabaa marka horta dad in la caayo hadaf dawladeed ma waxaan rabaa marka inaan idin sheegno anaga hadda shaqadeena ma in dad la caayo CBB la soo kiciyo qoladii hore saanay ahaayeen kan ay ahaayeen wixii la qaban karaa dawladda qofka Soomaaliga wuxuu ka rabaa service delivery wax inaad gaarsiido marka wasiiradina anaga hawshaas aan u dirnay annagana baaga baan u fadhinaa iyo bankiinada hadii la yiraahdo nimankii qaraabadeena ayaa laga sheegay afkay ku cuntay ku haybeen annaga afkaan ku cunaan ku haybinayna hadda Cabdixakiina wuxuu ka dhawaajiyay federal system-ka waxa ku qoran dastuurka in laga soo heshiiyo qofka laga soo heshiinayo ruuxiisa dan kalaba waxan waxyaaba laga soo heshiinayo qaybsiga khayraadka kamida khayraadka dalka ninaaba raba asagu inuu shidaalka contractiisa bixiyo waxa jira la yiraahdo bonuskana oo asagu qaato dawladda federaalkana aan waxba u soo harin waxyaabaha in lagu heshiiyo waxa kamida oo hadda lagu heshiiyay kalluunka kamida waa lagu heshiiyay heshiisa la qor ogaadaya heshiiskii la qoray waxa ku qoran hadii markab la siinayo sharci lacag islaamida in lagu siiyo documentisan hayna hadda dawlad goboleedyada qaar markii lagu heshiiyay midna in markabka $200,000 lagu siiyo inuu badda Soomaaliya fasaxeeda ku soo galo nimana hoos warqad ka qoray $80,000 aan ku siinayna annagaana ku fasaxaynay orod badda soo galay so annaga ma wax islu goynaa markabkan hadii fasaxi marka lama mana midaysna fasaxi dawlad goboleed hebel la fasaxay bixisa dawlad goboleed hebel la fasaxay bixisa iimaan darra nugu dhacay marka ana arkay ayadoo la leeyahay qoladaas ba intaas ku bixiyaan annagana waa inaan intaas ku bixin sayladay noqonay marka xoolaheena waa waxaan iibinayno ogow qofka Soomaaliga ahuna ma oga inuu kalluunka asagu leeyahay kalluunkan badan marada waxyaabaha marka wasiir oo diinta xataa fiqiga xataa loo baahan yahay malaygaas hadda ninka dabta dada waxa jira oo fasax u qaato haysta oo Chinese kala soo heshiiyay oo balaayada la soo heshiiyay lacagtaas maxalala umada iska lacagtaas malaygaas meeshaas maraayo Soomaaliya horta iska leh badda Soomaaliya u maraa qof walba gabadhan iyo wiilkan meeshan fadhiya ee lacagta horta inay wax ka soo gaarto ninkaas kor oo ku cunaa waxa meeshan markii ka jira afki aan ku cunaa horta ku haybinayna wasiiro shaqo badan ku taal marka laakiin waxaan ku talina anagoo og waxa soo dhanay ku yaalin caawa waa lagu hadlay wax ka tag wixii ka tag waxaan kugula talinaa waxa ugu yar ha ahaadaan hal shay oo la ajiif gareeya ka fiican 10 shay oo inta la raadiyo la soo waayo